عليكم الله وبركاته soo dhawaada asxaabta waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba aad joogtaana waxaan noo socda kooriskeena graphic design barashada Adobe Photoshop qaybtiisa beginnerka maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida barashada new document sida document loo abuurto iyo sida loo save gareeyo mid hore u sameysay sida loo bedelo sida wax ka bedel loogu sameeyo iyo cabirada la isticmaalay intaas aragno maanta inaan isla aragno waxaan rajeynayaa inaad soo baraatis gareyn doontaan cashirkii ka horreeyay wuxuu ahaa barashada shapeska iyo toolska maanta waxaan baran doonaa sida documentiisa loo abuurto new document loo abuurto inaan Photoshop sidaan usoo dhexgalno qaybta u horeyso new document first in abuurto markaa rabto meeshaan ku qoran tahay create new halkaan ku dhufanay create new marka dhan qayb kalena si kalena oo la isticmaalo shortcut hadda isla arki doonaa qaybta new document marka dhahdo qaybta horeysa wuxuu ku soo saari doonaa recent id misal aan 20 waaye oo ah shaqooyinka hore oo qabatay cabiradooda waaye recent maxaa la yiraahdaa recent oo ah shaqooyinka hore oo qabatay cabiradooda sida posterada iyo dhammaan halkaan ugu jira cabiradoodii shay walba hore oo qabatay cabirkiisa halkaan ugu jiraayo waa qaybta horeysa recent la yiraahdaa qaybtan ku xigtan waxaa la yiraahdaa saving oo ah cabir hore u save gareysatay cabirka save gareysatay marka save gareysanaysa meeshaan ku qalkaan qaybta hoose ku dhufanay halkaan meeshaan oo save project halkaas ku dhufan diyaarad in cabir save gareysato qaybtan saving waa cabirka save gareysatay meeshaan photo ku qoran tahayna waa photoski waa landscape dhammaan halkaan ugu jiraan oo portrait dhammaan halkaan ka helaysaa print aydan waa waxyaalaha daabacad ku saabsan waayo oo wixii rabta inaad daabacdo A40 ku jirta A50 A3 halkaan ku jiraan ayadana art qaybtan oo art hadii asaarno waxyaalaha ku saabsan drawing sawirka iyo waxyaalaha loo isticmaalayo qaybtan wax drawing la waayo web hadii asla aragno ayadana web waa waxyaalaha oo qaybta horeysa wajahada koobaad ee website-ka halkaan lagu dhisan gareeyaa web page halkaan lagu sameeyo ayadana cabirkiisa halkaan ka helaysaa oo ah 1920 plus 1080 halkaan ka helaysaa mobile ayadana hadii isla aragno mobile waxaa ka helaysaa ayadana mobilada dhammaan cabiradooda sida iPad iyo Apple Watch dhammaan halkaan ku jiraan cabiradooda hadii aad rabto inaad u sameysato mobile hadii aad rabto inaad u sameysato cover iyo Apple Watch inaad dhisan gareyso dhammaan cabiradooda halkaan ka helaysaa qaybtan film and video ku qoran tahay waa ayadana waxa loo isticmaalaa film oo video 4K iyo 8K dhammaan halkaan ku jiraan inaan cabiradooda oo ah waxa loo isticmaalaa thumbnail ka soo muuqdo ayadana halkaas loo isticmaalaa ayadana qaybtan hadii halkaas ugu soo gudubno qaybtan kalena hadaa u imaadno waa qaybta ugu muhiimsan hadii aad rabto qaybtan horeysa waxa lagu qoraa failka magaciisa halkaan lagu qoraa failka magaciisa halkaan lagu qoraa si automatic ah waxa uu qoran oo si default ah uu imaadaa hadii aad rabto magaciisa halkaan ku qoran kartaa poster magaciisa halkaas lagu qoraa qaybtan kalena waa wordkii waa balac iyo jiifkii labada halkaan oo labada cabir oo la isticmaalo waa jiifkii iyo istaagi labada halkaan waa kuwan qaybtan kalena waa unitka isticmaalayso pixel inches iyo centimeter millimeter point dhammaan halkaan ku jiraan badanaa waxa la isticmaalaa social media marka isticmaalayso oo post camal sida post ka sameynayso kala pixel la isticmaalaa qaybtan kalena inches iyo centimeter millimeter waxaan kuwan waxa loo isticmaalaa waxyaalaha ku saabsan printiga dhammaan halkaan wixii oo print ku saabsan daabacad waas loo isticmaalaa qaybtan hadii asla aragno oo hadda aan gelino oo kun oo kale hadii aan gelino oo qaybtan aan 50 gelino waa qaybtan waa video kan waa jiifkada istaageeda hadii aad rabto inaad istaagada si automatic ah u qaadanayso maaragtay waa jiifki istaagi hadii aad rabto inaad sanan noqonaysaa waa wordkii iyo xajki hadii aad rabto inaad board sameyso kala boardka cabirkiisu waa cabir default oo cabir waa cabir custom
oo qofka customerka laga rabaa cabirka uu sameynayso. waxaan loo isticmaalaa isagana centimeter. haddii aad rabto boor camal oo 5 mitir camal haddii aad rabto inaad sameyso 5 mitir leedahay wiridkiisa. heightkiisana haddii aad rabto ilaa iyo 2 mitir leedahay ilaa iyo 2 mitir ilaa iyo 2 mitir leedahay. boor ayadana boorka haddii aad rabto inaad sameyso asagana cashirka oo u tagi doona cashirkiisa boorka lagu sameeyo oo noo soo socda cashirkaas. qaybtan wiridka iyo heightina ayadana sidaas loo isticmaalaa. qaybtan kale haddaba imaadno resolutionkiisa waa qaybta qualitygiisa oo project aad sameynayso qualitygiisa halkaan laga maamulaa. waxaan u sagayso 72dan wix ka hooseyn in isticmaasho ma fiicno. 72dan markaa isticmaalayso waxyaalaha siska weyn sida boorarkii markaa sameynayso 72dan la isticmaalaa sababtoo ah cabir weyn waayo oo computerkaada ma adkeysan karo. marka 72dan la isticmaalaa. markaa rabto inaad sameyso boostaradii iyo xoolaha lamid ahna waxaa isticmaali karta 300 waa markaa sameynayso cabirada boostarada iyo waxyaalaha la sab oo social media hortin u isticmaasho waa ayadana 300 ka dhiganaysa. qaybtan color mode hadda oo imaadana waa RGB maxaa la isticmaalaa CMYK. RGB markaa isticmaalayso waxyaalaha oo social media bis loogu talagalay markaa sameynaysa waa RGB waa red iyo green iyo blue waaye waxyaalaha oo social media bis ku saabsan waaye. CMYK ayadana waa waxyaalaha oo ku saabsan ayadana waa waxyaalaha ku saabsan daabacada kaliya waxyaalaha oo daabacada sida boorarkii ID cardska iyo business cardka dhammaan stickerada wixii dhan CMYK loo isticmaalaa. mar walba haddii isticmaalayso britiga qadiisa waa CMYK oo kalaradiisa ah. qaybtan kalena haddii maanaha ayadana waa backgroundkiisa haddii aad white ku ahaado white ka dhigin black halkaas ayadana saas leedahay. qaybaha ugu muhiimsan haddan meeshan waa isla aragnay. marka haddii aad maanta in aw document markaa rabto inaad abuurato sidana leedahay cabirkiisa cabirka 1080 waxaa loo isticmaalaa posterada loo isticmaalo. anaga poster markaa sameynayno isla arki doonaa kasaan dhahno hadda keliyada leenahay hadda waa abuuranay cabirkii oo 1080 markaasaan noqono. marka waxaan rabnaa inaan barno qaabka loo soo gashto file markaa rabto inaad soo gashanayso qaabo badana la isticmaalaa waa isla arki doonaa. haddii aad kaan meeshan ku qoran tahay open oo halkaas ku dhufanay qaybtan fileka tagi kabacdina meeshan ku qoran tahay open tagi halkaana ka soo gashan kartaa marka cabir meesha ku yeelo filekaadi adiga yaqaano halkaana ka soo gashan kartaa filekaadi. shortcut la isticmaalaa jirta ayadana oo ah control iyo o isla taabani control o marka isla taabato ayadana waa sidoo kale oo waxaa rabtaa ka soo gashan kartaa control o aa saas u soo gashan kartaa. qayb kaloo la isticmaalaa jirto haddii rabto inaad si kale u soo gashato oo haddii aan iska tirno qaab kale loo soo gashto oo jirta oo meesha halkaa markaa imaado 2 jeer dhagdhagaa siini keligaa siina mise 2 jeer ayadana qaabkan waa loo soo gashtaa oo markaa file soo gashanayso oo meesha kugu jiri ama sawir waxaa rabto markaa soo gashanayso halkaana la isticmaalaa open la isticmaalaa ama control o aa dhihi kartaa saas loo isticmaalaa. qaybtanna waa open recent waa waxyaalihii hore oo shaqooyinkii hore u qabatay waayadana halkan ku soo saaraya shaqooyinkii hore u qabatay waayadana. haddii aad rabto inaad file wax ka bedesho file hore u samaysatay oo save garaysatay inaad wax ka bedel ku samaysato ayadana waa soo gashanaysaa control o aa leedahay ama sidaas leedahay isla markaa dhahno hadda midaan soo gashan doonaa. markaan sidaan usoo gashano unoo soo galayaa sidaa markaa usoo gashato waa file hore u samaysatay in wax ka bedel markaa rabto inaad wax ka bedesho waayo waa sida kan oo kale. haddii aad rabto inaad wax ka bedesho wax ka bedela ku samayn kartaa oo sidana leedahay waa kaas wax ka bedela ku samayn kartaa file walba horta oo hore u samaysay sidaasaa yeeli kartaa oo ah kulli hadda waxaa rabo dhan waa ka bedeli karaa. sidaas loo isticmaalaa ayadana oo benta oo bed iyadana sidaas loo isticmaalaa. haddii aan isla tagin qaybta safeta oo markaa sheyga rabta inaad safe garaysato safetiisa halkaana tegi
oo qaybtan u horeysa iyadana saddex qaab loo save gareeyaa. qaybta u horeysa haddii aad rabto inaad save gareysto markaa sheyga saan u qabato halkan aad leedahay save aad leedahay oo meesha hore u dhigatay oo kugu save gareyn doonaa mise arkaysaba. qaybta saas loo isticmaalaa. qaybtan kalena waa iyada markaa inaad u samaysto sida PSD ahaan markaa u save gareysto iyadana halkaas la isticmaalaa save as la dhahaa oo faylka markaa rabto inaad PSD ahaan u save gareysto halkaan dhiganaysaa saas la iyadana. qaybtan kalena oo ku qoran tahay save a copy meeshan ku qoran tahay iyadana oo markaa sheyga rabto inaad sawir caadi ka dhigto JPG in badan sawirka waxaa la isticmaalaa JPG iyo PNG labadaba. PNG waa transparent aana loo isticmaalaa iyadana. labada saas loo isticmaalaa oo save as dhammaan oo horta save as iyo save copy waa isla aragnay sidaas loo isticmaalaa iyagana. marka haddii aan rabno inaan meeshan qaybkan kalena isla aragno oo place meeshan ku qoranta place waa idan qaabka loo soo gishto oo haddii tan ka tagno ilownay qaybtan kale markaa rabto inaad soo gishato waa idan halkaan la isticmaalaa sida kale sawir oo kale markaa soo gishato oo isla barta ayna markaa halka in lagu dhigo isla meesha ayna lagu feel ku furo in lagu dul furo haddii aad rabto saasna leedahay waa kana isla meeshana lagu furayo oo page-ka loo geenayo iyadana saas loo isticmaalo oo ah waa maxay waaye waa place linkada isticmaali labadan baa la isticmaali kartaa place labadaba isticmaali kartaa oo sidaas loo isticmaala iyagana. marka iyadana soo gashanayso waayo save-na waa isla aragnay sida oo document cusub loo samaysto waa isla aragnay sida file loo samaysto waa document cusub loo samaysto waa isla aragnay sida file hore u samaysto loo soo furo waa isla aragnay sida loo soo furo oo open loo isticmaalo waa isla aragnay sida loo isticmaalo save as in saving marka sheyga samaysto loo save gareeyo waa isla aragnay ana place markaa soo gelinaysan ayagana waa isla aragnay. cashirkeen maanta intaas ku koobnaa rajayna inaad soo baratis garin doontaan ku soo celcelin doontaan cashirkan qaabkan waxaan usii gudgeli doonaa sida qaybta design-ka hadda ka bacdan bilaawi doonaa cashiradeen ku xigana wuxuu noqon doonaa design-ka oo halkaasaan ka bilaawi doonaa design-ka. waxaan rajaynaa inaad soo baratis garin doontaan ku soo celin doontaan inta cashirkan cashir lamida ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.